أنا وحر برضه إلى عاوز برياله وحال غيا dadka qaar badan oo waxa iska jira ma ogtahay meel dhow ka hadla inay isiraadan hebel waa ismuujinaya muxuu uga jeedaa inuu ku soo noqnoqdo boosaaso iyo inuu lacag soo aruurshay danta ka dambaysa maxay tahay marka horta waxaan rabaa inaan danta sheego ka dambaysa danta ka dambaysa ma aha mid shakhsi ah mid danaho aniga aan leehayna ma aha waxa weeyaan halgankan oo runtii mid culus ah waajibku wuxuu ahaa inay dawladda Soomaaliyeed oo dalka u dhaaratay oo muxuu ahaayay mas'uuliyadii haysa shaqadeedii bay ahayd shaqadaas marka hadii suurto gali weyday oo arintii ku soo biyashootay shacabka reer Puntland iyo madaxweynahooda waajib waxaan ugu noqotay in qof kasta meesha uu ka qaadan karo iyo kaalinta uu ka buuxin karo inuu buuxiyo oo la isgarab taaga dawladda si halgankaas u guuleysto marka horta waa midaas mid isoo celcelinaysa iyadoo waliba Ramadaan oo aad dareemi kartaan yani inuu culayska uu leeyahay xil Ramadaan in la safro waliba meel dheer aan ka soo safro marka taas aniga diyaar u ahay taas aniga igu dhiirigelisay inaan ka daalin inaan soo noqnoqdo dan shakhsiye kamalihi ismoojin kamalihi alxamdulillah qof kasta oo reer Puntland waxaan ka rajeynayaa dadaalka ay maanta wadaan inay sii wadaan inaysan ka caajisin inaysan ka daalin inaysan saameyn ku yeelan waxyaabaha dacaayadaha lagu furo halganka lagu furo halganka waxyaabaha muxuu ahaay xagal daaciyo waxa kamida dacaayadaha raqiiska oo ah kuwa niyad la rabo in lagu niyad jabiyo waxa ciidanku niyad bay hayaan dawladdu niyad bay haysaa gudiyada ka shaqeynaya niyad bay hayaan dadka shacabka waa niyad fiican yihiin waxa lagu xagal daacinaya waxa kamida in la yiraahdo hadal baa hebel yiri iyo hadal baa muxuu ahaay cid loola jeeda taas waxaan rajeynayaa inaysan waxyaabahaas dadka qayb ku yeelan oo dadku ay isku duubnaadaan isku duubnadan aan lagu dhaawacin cid kasto anaga gacanna siinaysana aan muxuu ahaay mid madow la gelinin waa la socotaan dad baa waxay yiraahdaan ciidamada muxuu ahaay Puntland la jira saaxiibada la jira iyaga nimankan meesha ku haya waxyaabaha la rabo inay halganka lagu xagal daaciyo dadka waxaan rabnaa inay waxyaabahaas oo dhan ka waantoobaan reer Puntland maanta uma jeedaan inay dhageystaan hadal la rabo halgankooda in lagu daciifiyo waa iska soo daaliyeen waxaas waa ka muxuu ahaayay fog yihiin marka waxaan mar labaad rabaa inaan ugu baaqo shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan inay halganka sida isku garab taagaan in wax kasto ay hayaan ay la soo garab taagaan waa sharaf waa qiimo ceeb ma aha waa muxuu ahaayay waajibaadkii lagu igmaday muwaadin ahaan anigana gaar bay ii sii tahayo maadaama aan asaasayaasha kamid ahay inaan arko Puntland oo nabad qabta shacabkeedu nabad qabo waajibaadkeedu gudata